Maryam baa dib ugu soo laabatay habartii cad ka ahayd ee guriga dhex tukubaysay waa la iska wada fariistay saacadaha ka soo wareegay intii shaqo la'aan ay iska fadhiyeen meesha goor dambe oo duhur tahay baa iridii waxa soo garaacay dhowr ilmo oo isku qaylinaya habartii inta yankicin baa Maryam kacday oo istiri adaa yar oo duqda ka fudud fur way sii oraday oo iridii intay is agtaagtay damacday fur si loo furay garan weysay maxaa yeelay waa markii ugu horeysay oo ay la kulantay irid sidaas u xiran horay ulamay kulmin sakatuurada qaabka ah waxay taabatay birta isu haysa iridda iyo darbiga waxba way ka hagaagi waayeen ilmihii baa si xun u garaacay iridii Maryam markaasay sii naxday iyadoo ka foorarsanaysa aqoon darideeda iyo sida loo oran doono waa badawad aan waxay ogtahay jirin iyadoo naxdin kurboonaysa meeshiina iska taagan oo xitaa garan weysay duqda ku noqo runta u sheeg baa duqdiyo u adkeysan weysay garaaca goobtii timid naahee dhawaa sidee maxaad iridda baas u furi weysay mise adaaba mid dhaga xiran oo hadda howdiya meel daran laga keenay ah habartii oo hadalka leh baa fag iridii ka siisay hadal kale intaanu Maryam iyo duqdii dhaxmarin baa waxa ooda soo jabsaday ilmihii iridda dhoobnaaye in laga furo sugayay qayle iyo buuq bay la soo galeen diifta buska uskaga iyo wasaqda ka muuqda ilmuhu waa wax kale dharka dugsiga dhaxay qabaan boorsooyin iyo buugaag bay wada lulayaan ayeeyo wiilkan ma aragtaa ayeeyo waa beenteeda way edab daran tahay iyada imaagtay waa beentoode anigay labadooda maanta oo dhan imaagayeen alla waa tan ka qiyaameeyay jalaatadii maxaad adiguba ka dheeftay sawtaan ciida kaaga riday waa hadalada ilmuhu isu idaarsanayeen Maryam markii aragtay in ilmuhu reerka yihiin bay aad uga naxday oo istiri balaayadan yaryari meelay joogaan baqayr ma qabaan intiiba waxa kale oo iyana yimid ninkii iyo naagtii reerka lahaa oo iridda ku wada kulmay mid kastaaba dhankiisu raashin aan bislayn u sidaa iyadoo leesi salaamaya la soo wada galay isha waxa lagu wada dhuftay Maryam iyadoo niyada laga wada jeclaystay inay adeegto u noqoto ka hor Maryam tan u doonan reerka waxa uu soo maray ugu yaraan 60 adeegto oo waxay eriyaan wax ka dhuunta iyo waxay faraha isula tagaan noqday reerku aad bay ugu baahan yihiin hayo hooyo bal maanta madax wareerkii ka waran ninkii reerka yiri intuu habartii u yimid madaxana qabtay maanta waa ladnahay hayeeshee ma ogtihiin inaan gabar inoo helay hooyadii baa tiri alla ilaahay khayr baad sheegaysaa oo ma gabadhan jalaqsan baa afadii reerka iyana inta qasashay tiri alla ogo waa inantan iskala shubaysee gabdhaha xaafadaba baraha dheeraysay maxaad kaga daali kullay waa gabar maanta joogto goldoloolo laga waayimaayee hooyadii baa tiri ilmihii markay maqleen inantana idin adeegi doontay kor iyo hoos ka eegeen oo ku soo carareen oo goonyaha iska taageen kuwii ilmaha dhalay sidoo kale Maryam intay qajishay bay indhaha isku qabqabatay odaygii reerka oo ah ugaarsada weyn ama dilaacaan ah ayaa fahmay cusaybka ama waaye aragnimo yaraanta inanta ka muuqata eegmadiisii ayuu hoos ugu sii dhigay aadna waxa u cajabiyay quruxday u dhalatay qaawan hayo hooyo ma cid baa ku keentay mise si kala isu afgarateen saygii reerka yiri si kastaba aan isu helne qoftani shaqay rabtaa ee leeshiya halna ogaada waa badawe waxbara sida ka muuqata maaha qof ilbaxa oo sida uga baqdaan kulli ayaamaha hore hooyadii reerka tiri hadaladani markay dhacayaan Maryam ma maqlayso waxa lagu jiraa qolka hurdada reerka waa la iswada eegay saygii afadii iyo hooyadii waxaan filayaa inaynan sinaba uga fursanin shaqo qoristeeda saygii reerka yiri maxuma jirto inaan iska eegnaa haboon hadaan doonno muddo tijaabo ah baynu siin karaynaa afadii baa tiri qof siday u cusub tahay u cusub magaaladana ugu hortahay ma sahlana marka inkastoo dhibaatada leedahay haddana iyada ka aaminsan kuwa ilbaxay habeenkiina qayila maalintiina wax ku macjileeya ee taa loo dayma lahaado hooyadii reerka tiri hooyo ciseebkeedu wax uu faa'iido leeyahay malaho marka horena inaga ku dhib qabna ileen waxbaad baraysaa
waxay walaaqday xunna waad u dul qaadanaysaa mar alla markay wax kala barato oo ilbaxdana markay doontay iska dhaqaaqaysaa marka qoftan aan iska qoranno intii muddo ahna isaga meel gaarno haday iyadu qof qayr noqotase waa halkeeda saygii reerka yiri afadii reerku iyadoo wax hadal ka dhiiban bay sida saygeedu ku taliyay iyo tusaaluhu dhiibayay ku raacday bal hadda iyada u yeero la heshiiya hooyadii oo sii baxaysaa tiri labadoodii kale reerka lahaaba isdhugtay haye maxay kula tahay ugu badnaan inaynu mushaar u siino inantan ilaa adiga wasiirka dhaqaalaha reerka oo bal horta mushaarku uu noqon mid mar kaliya inta lagu dhawaaqo dabadeed halkiisa weligiiba fadhiya inagoo ka eegayna qoftani siday u shaqo taqaan iyo geesinimo gelinteeda hadda waxaan uga bilaabaynaa 60 shilin haday ka soo reyso aynu u bognana waanu u kordhin doonaa mise sidaa kulama aha afadii baa ku jawaabtay wariyaa dumarku isu darana oo isu xaasisana oo waxaan ku weydiiyay maxaad ku keento qof bini'aadam ah inta la eg shaqadaad garanaysidna qabanaya waliba nool waqtiga aanu joognay wax waliba cirka yihiin inta mushaar ha u qaato adigu imisaad qaadataa oo adiga habeen iyo maalinba karaye saygii reerka qoslaya yiri haye adiguna markaasaad waxaan loo joogin qaadaa dhigtaa 60 shilin ka badan annaga nagama baxdo afadii oo si isu gashay baa tiri waxaan filayaa marna taasi suuragal noqon maysee qorshahaas wax ka bedel saygii oo isxanaajinaya yiri adigu iska daayo haddaan anigu iyada yeelsiiyo ma waxbaad ka qabtaa afadii oo qosol beenaaleynaysa tiri anigu waxba kama qabee yeelsi saygii baa yiri iyadoo meeshii la joogaba Maryam loo yeeray ilaan haddaba in adeejis lagu bilaabaa la rabaaye way soo gashay mise guriga lagu jiro qurux iyo dhaldhalaal badana haye gabar magaca adigu afadii baa weydiisay Maryam ayay ku jawaabtay gartay waxaan ku weydiiyay adigu soo shaqo ma rabin afadii baa tiri ha Maryam baa ka daba tiri sida wax loo kariyo ma taqaan afadii baa sii weydiisay wax waa aqaan Maryam baa ku jawaabtay hore xamar ma u joogi jirtay afadii baa tiri maya Maryam baa tiri goorma timid xamar afadii baa weydiisay xalay Maryam baa ku jawaabtay ma xalaydan afadii baa tiri ha Maryam baa tiri afadii iyo saygeedii baa inta is eegay qosol aan cod lahayn dhakasiiyay Maryamse jiru qosolkaasi ku beeray iyadoo ay ku sii weynaatay jiradii ahayd qofaan xamar ku noolayni dad ma aho waa badow wajigeeda ay ka soo ifbaxeen qajil iyo xishood baqdineed oo xumad wata wayna fahmeen xanuunka Maryam haya markaasay hadiiba joojiyeen qosolkii iyo yaabkay muujinayeen waxaan kaloo ku weydiiyay xamar yaad u timid ma cid baa ku joogta mise afadii baa weydiisay Maryam baa inta fakartay istusisay hadaa tiraadid cid baa ii joogta waa inta oo yankaan nixine isu sii maskiinayo runta u sheeg oo tiri maya cid iima joogto anaa iska imid mar labaad baa la is eegay eegmadaas oo Maryam ay u qaadatay in loogu naxariisanayo dhanka kaleeysa ahayd iyo inay dabin iyaga ugu jirto gartay meeqaad ku shaqaynaysaa waxaan u jeedaa lacag meeqaad bishii rabtaa inaad ku shaqaysid afadii baa tiri Maryam baa naxday markay mushaar iyo lacag maqashay waxay sheegtay garan weysay maskaxdeeda dib u fakartay oo waxay is hor keentay lacagahay tiqiin kaano kubi nushilin shilin 5 shilin 10 shilin 20 wax 20 shilin ka badan waligeed faraha ma saarin hadba dhan bay eegtay waxa kaloo ku wareegay hadalkii sagale ahaa mushaarkayaan lagu dagin lacagahay tiqiin bay isku dardartay 5 10 20 waa isku 35 shilin iyadoo xiiqsan hadalkuna ciriiri ku yahay baysin naxdini ku jirto waxay u tiri 35 baan ku shaqaynayaa saygii oo aad u dheehanayay Maryam iyo sida lacagta u mashquulisay baa qosol cishan waayay sidoo kale afadiina way qosashay markay wax isku dardaraysay farahay tirinaysay markala inta la is eegay laysu iljabiyay waayahay 35 maya 40 baad ku bilaabaysaa hadda hadhowna haddaad noqotid qof loo bogo waa lagu kordhinayaa maanta laga bilaabana gabadhii reerka tahay ogsoonow afadii baa